ururka samafalka caalamiga ee tawfiiq ee ka howlgala gobolka Nowdal waxa uu maanta deeq lacageed guddoonsiiyay hooyo dhashay wiil yar oo xanuunsanaya muddo fara badan isla markaana ay ka danqadeen qaar ka mid ah bulshada Soomaalida kuwaasoo lacag fara badan u soo diray wiilkan balse wiilkan yar ee xanuunsanaya waxa uu ururka samafalka tawfiiq u qaaday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya si halkaasi loogu daaweeyo walow qaliin ay dhaqaatiirta ugu sameeyeen magaaladaasi aysan ku guuleysan inay badbaadiyaan wiilkan yar oo u geeriyooday xanuunkaasi hooyada dhashay wiilkan yar oo maanta la guddoonsiiyay lacagihii ay u soo direen bulshada Soomaalida ayaa waxay u mahadcelisay ururka samafalka tawfiiq iyo cid kasta oo Soomaaliyeed oo ka danqatay dhibaatada haysatay wiilkeedii yaraa ee geeriyooday annagoo dhamaantii joogna mahad Ilaahay baa la tahoriyada dambaba annagoo dhamaantii joogna xafiiska tawfiiq waxaan maanta guddoonsiinaynaa walaashayo oo aan mar hore shaashada idinka tusnay iyadii ilmaheedii xanuunsanayay waxaan dhamaan u sheegaynaa dadweynaha walaashay soo caawiyay ilmihii inuu shafeecay waxaan leenahay wixii aad u soo dirteen ilmaha yar ee ilmaha fadligiisa ku soo dirteen haddii uu isagu shafeecay hooyadii baa joogta marka hooyadii baan maanta ku wareejinaynaa insha Allah tacaala waxaan isku daynaa lacagta dhamaanteed inaan sheegno haddii aan cid ka tagno waxaan idin leenahay Ilaahay dartii nagu cafiya wixii aad soo dirteen dhamaanteed wuxuu gaarayaa gacanta walaasheen hadii Ilaahay yiraahdo lacag halkan waxaan ku hayaa ay soo dirtay Fartuun Xasan Faarax oo ka soo dirtay Holland kullay waxaan leenahay iyada iyo walaalaheeda muxsiniinta ay ka soo ururisay iyo haday iyadu gaar u soo bixisay kullay iyaga iyo rabbigooda ay soo waxay soo dirtay lacag dhan $750 oo ay ka soo dirtay magaalada Amsterdam ee caasimadda Holland waxaan leenahay walaalo naga guddoon waxa kale oo halkan aan uga dhiibaya walaashay oo guddoonsiinayna Fataax Abdulle Maxamed oo ka soo diray wadanka magaalada London xaafada Greenford la yiraahdo wuxuu soo diray $500 isaga iyo walaalihiisa kalaba waxaan leenahay miisaanka xisaabaadka Allah idin ku daro waxaan halkan uga dhiibaynaa kale lacag u soo diray walaalkaya Umar Ahmed Yabaal oo uu ka soo diray wadanka Norway waana $500 lacagtaasina halkan waxaan uga dhiibaynaa walaashayo lacag kale oo naga soo gaadhay magaalada London lacagtaas oo tiradeedu ay dhantay $345 Farduusa Cabdillaahi Umar ayaa soo dirtay waxaana laga soo diray xaafadda Hanas loo yiraahdo ee ku taala magaalada London waxaan halkan uga dhiibayaa kale walaashay lacag soo diray Aadan Maxamed Jaamac iyo gabar muxsinad ah waxaanay soo direen lacagta ay ka soo direen magaalada wadanka Nairobi magaalada Nairobi wadanka Kenya waana $300 waxaan leenahay dhamaantiinba waa la idin ducayn doonaa insha Allah rahmaan waxaan ugu ku xidhayaa lacagta aan liibayo lacag ay soo dirtay Luula Aadan London oo ay ka soo dirtay magaalada ku taala Ingiriiska la yiraahdo Leicester City lacagtaasi waxay dhan tahay $450 waxaan laga soo gaadhay magaalada Kuwait $200 waxa soo dirtay ubax noox iyada iyo habla walaalaheeda muxsiniina waxaan ilaahay ka jishaysiiyo waxa waxaan laga soo gaadhay mintan lacagdan $240 oo waxa soo dirtay Sahra Ismaan iyo walaalaheeda ilaahay ka jishaysiiyo waxa kaloo laga soo gaadhay magaalada Holland $200 Khadiija iyadana ilaahay ka jishaysiiyo waxa kaloo runtii naga soo gaaray magaalada Sweden Stockholm $100 waxaana soo diray Xasan Maxamed waxa kaloo laga soo gaaray magaalada Switzerland Zurich $50 waxaana soo diray Mustafa Ismaan guul بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بمحله horta dhamaanteed إلهي بمحله halkan waxaan ka guddoonsiinayaa hooyada $100 oo ay soo dirtay Hibe Yunis Daahir oo ay ka soo dirtay magaalada Tilton oo $100 halkan waxaan ku hayaa waa $10 oo ay gabar ka soo dirtay gabadhaas oo magaceeda la yiraahdo Ubax Ibrahim magaalada Boosaaso ay ka soo dirtay $10 waxaan kaloo ka guddoonsiinaynaa lacag uu soo diray walaalkay Maxamed Sheekh Muuse oo Mareykanka ka soo diray lacag dhan $200 waxaan leenahay nagu guddoon
وحكرنا كبد الشيء لا ولكن بشير محمد العقد $400 وأصلا صادرة وحكرنا كبد الشيء لا وراشي كهشة محمد العقد $100 صادرة وحكرنا كبد الشيء لا بدر محمد العقد صادرة ولا $100 وحكرنا كبد الشيء لا وراشي كوس جامع إدلب العقد $100 صادرة أفركون اليوم يملك بقول إسرائيل سراشون وحرمتي أن الله وبرينا dadka soo diray qof kasta ay waxa juulayaan qof ma aragtay dadka xanuunsanaya qof ma aragtay ilaahay rajaka iyo ujeedo kale dad baa dadkooda xiran yihiin qof kasta oo lacagtaas soo diray haweenaado lacagtiisa ama hayarata waxaan baraynaa xaajada uu ilaahay ka doonayo inuu ilaahay furaydiyo ilaahay furaydiyo la sadaqada ilaahay dadka uu ka qaada faqirnimada ilaahay dadka ka qaada sadaqada la baxay ilaahay wuxuu maaragtay caafimaad baa lagu helaa rasuulku wuxuu yiri dadkiina buka ku daweeyay sadaqada marka waxa weeyaan waxaan leenahay qof kasta oo lacag soo diray oo qofka gabadha walaasheen ilmaha ay ka dhintay u soo diray ujeedaduna ay ahayd ilmaha yar buu ka sidii dhakhtar loo geeyay soo diray ujeedadii waa gaadhay ilaahayna ajarayn ka siiyay ilaahayna naxariisto awlaadina ilaahay naxariisto ilaahay awlaadina ayna xiftiyo ilaahayna xiftiyo ilaahay odayaashina xiftiyo ilaahay xiftiyo ilaahay dadka lacagta soo diray ilaahay naxariisto ilaahay ku wajin firduus garis ilaahay ku marko u barakaysi ilaahay ku awlaadooda awlaad saalixa ku wada dhigtay ilaahay ilaahay ونحن نقول كتوفيق نهض يا ونحن شقيق هي ما نقولنا منك بس شقيلة هاي كل شقولها هند شقيلة هاي يرخي شقولها إنما الميديا نقول ضوبة يا يوم شقيلة هاي أنا من وجهي هاي ونقولنا منك علم الشعب قاعدة ما جبتو تدخل مساكين كانوا علينا إلى ونحن نعطي توفيقنا إلى ونحن نحرس إلى ودخل عطس صادر ونحرس إلى ونحن نوضع نحرس إلى ودمار waxaan doonaynaa inaan idin ogeysiino dadka muxsiniinta ee meel walba jooga ee mar walba soo caawiya dadka masaakiinta ee walaalahooda ama xanuunsanaya ama dantaba ay hayso maxamed yare oo hooyadii ay tahay hibo oo walaashay halkan ag joogta lacagtii hore ee soo dirteen aad midiyada ka aragteen waa lagu qaaday maxamed yare hooyadii maalin galab duhur baan ku wareejinay lacagta aroornimadiiba hooyadii way qaaday waxay geysay Ethiopia Addis baa la geeyay deetana isagoo dhakhtarkii Addis ku jira ayaa ilmaha yar ilaahay waqtigiisii keenay waxaan idin leenahay maxamed wuxuu ku dhintay iyo hooyadii oo noolba iyagoo ilaahay baa insaanka karaameeyay iyagoo karaamaysan ayuu maxamedna hooyday hooyadiina ay ka soo noqotay waayo hooyadu marka ilmaheeda wax u hayso ee ay dhakhtar geyso ee dhakhtarkii oo baaraya ama uu ku jiraba ilaahay hadiisa inoo keeno dad islaam ah ayaynu nahay waxa weeyaan wax waliba ilaahay nagu keeno waa inaynu nidhaahno alxamdulilaahi rabbil caalamiin alxamdulilaahi calaa kulli xaal marka waxaan leenahay idinkaas oo karaameeyay maxamed iyo hooyadii ilaahay waxaan idinka baryaynaa adduuniya aakhiraba meel walood joogtaanba ilaahay idin karaameeyo waxaan anigu si gaara ii taabatay inanka ka soo diray $100 magaalada la yiraahdo Mandheera ee ku taala wadanka Kenya waxaan leeyahay hooyo inta doontaba jir laakiin marka labaadeedna soo caawiso horana shaashada waan kaaga yiri imikana waan kuugu celinayaa adiga oo ilaahay xoolo badan ku siiyay in ilaahay aad soo caawisan kaaga baryaya sababta isaga gaarka u soo qaatayna waxa weeyaan sideedaba xamaadadka waxa maashay ee dhabarkooda wax ku qaada way ka dhibaato badan yihiin umada kale isagoo $100 ay dhaqaalihiisa dhamaayay oo haystay oo ahaa ayuu haddana ilmaha yar ku soo caawiyay dhammaantiina waan idin ducaynaynaa waxaan idin leenahay Cabdulqaadir baa ducadii dhameeyay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro maalinta la qatan iyo la qaawan yahayna ilaahay waxa aad hore u dhigateen ay noogu wada dambi dhaafo wassalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي أيام هذه السنة الحمد لله رب العالمين إله مرة إيه مرة قبل يساق أيام هذه السنة وحنا إلهي وبريادة كيسو عاوية إنه إلهي مساك حسنات وغطرات إلهي وحنا وبريادة إنه
nin walba wuxuu leeyahay muraad ilaahay muraadkiisa inuu u dhamaystiranayaa ilaahay u bareeyaa alxamdulilah rabbil caalamiin maanta iyo maalintii hore isku niyad baan ahayn maalintii horena waxba u haynan halkaa imiday iyo maalintii aan dhakhtarka ilmaha geeyay isku mid baan ahayn waayo maalintii hore waxba uma hayn oo guriga la dhex fadhiyay maalintii dambana waan helay lacagtii aad igu soo xawiseen allah idinka jisaysiiyo dhakhtar baan geeyay dhakhtarkiiba ku shafeecay marka alxamdulilah dee shafeecana ilaahay baa keena dhibsadana ilaahay baa keena noloshana ilaahay baa keena marka ilaahay idinka jisaysiiyo waxa weeyaan ururka tawfiiq waa urur wanaagsan waa urur maxay haydanay waa urur aad u wanaagsan waa urur fiican urur jiran allaha ka dhigo waa urur aanan ku shaqaynin waa urur dar ilaahay ku shaqeeya marka waxa qofka dar ilaahay ku shaqeeyana dee ilaahay wuu xasanaad iyo ajir ka helaya billahi tawfiiq salaam cabdi fataax axmed Hadwanaag News magaalada Boorama.